loo dhiibay. walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa saacaadkii koowaad ee waxyiba nebi muuse ku soo dego waxaa lagu yidhi waana اkhtartuka fastamic lima yuuxa inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudni wa aqimi الصalaata lidikri. waxaynu dareemi karnaa nebi haaruun sidoo kale an tabawa'a liqawmikuma bimisra buyuuta wajcaluu buyuutakum qibla wa aqimu الصalaa. waxaynu dareemaynaa iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga warramayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo loo tilmaamayo walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacna. ilaahay uu tilmaamayo waxaan bidhbidhkan adduunya zahrat alxayaati addunya inaan waxba isku mashquulin oo indhaha u taagin. maxay samee baa lagu yidhi wa'mur ahlaka biالصalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquk waalcaaqibatu litaqwa. idan qur-aanka markaynu u fiirsanno makiga ah qur-aanka aan akhriyay waa qur-aan makiya. qur-aankaasi makigaa markaynu u fiirsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo maka la joogo ayuu muslimiinta salaad uga warramayay, loo warramaya ambiyadii hore iyo salaadu halkay ka taagantay, loo warramaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo wixii alla faray. bale qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa luqmaan alxakiim, mid xikmad la siiyey oo luqmaan la yidhaahdo. luqmaan xikmaddii ugu weynayd ee uu ilmihiisa kula dardaarmaya waxaa ka mid ahayd yaa bunaya aqim الصalaah yaa bunay aqim الصalaata wa'mur bilmacruufi wanha can اlmunkar. inahaasi oo dhan markaynu isku darro waxaynu leenahay salaadu waxaa la ysfaray inay noqoto usuusha koowaad ee islaamnimadu ka intilaaqda ama si ay ka bilaabanto, inay noqoto waxyaabaha ugu waaweyn ama tiirarka ugu waaweyn ee islaamnimada qofka muslimkii ay ku taagan tahay. waxaynu dareemi karnaa hadday qur-aanka makiga ah sidaa ku ahayd markii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu hijrooday ee uu madiine tegay. markan hore afraad baa la binaynayay, mujtamaca biniyadiisii koowaad, usuushiisii koowaad waxay dowladdu islaamkii ku dhismaysay qof qof buu ahaaya afraad dad fara ku tiris oo la tirin karayo oo reer maka ah, laakiin salaadaas bay ahayd wixii lagu kobciyey. madiina markuu tegayna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu bilaabay dowlad islaamiya inuu dhiso. wixii koowaada uu mujtamaca u qabtay nebigu waxay ahayd inuu dadka u sameeyo meelihii ay ku tukan lahaayeen ee ilaahay kula xidhiidhi lahaayeen. markuu madiine tegay cawaalideedii koowaad markuu degay bani cawf masjidu quba ayuu nebigu dhisay. 14 casho kadib ayuu madiine u dhaadhacay. madiine markii uu tegayna wuxuu ugu horraysiiyey nebigu sameeyey masjid nabowi. intaanu guri dhisanin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu dego ayuu wuxuu dhisay meeshii ilaahay lagula xidhiidhayay subxaana wa tacaala, masaajid. waxay culammadu yidhahdaan dowladdii islaamiga koowaad wuxuu nebigu ku bineeyey 3 shay bay yidhaahdaan. xidhiidhka basharka iyo alla u dhexeeya in la xoojiyo salaada oo masaajid loo sameeyey. 2 mujtamaca dhexdiisa in la ysku xidho oo walaaleeyey dadkii ansaartii iyo muhaajiriintii si islaamnimadoodu ay u adkaato oo dad aan rixim walaalo ku ahayn uu nebigu walaalo ka dhigay. thalithul amr waxay ahayd heshiisyadii uu la galay muslimiinta gudaha joogta iyo gaaladii kale ee aan markaasi mawaaciidii ama cuhuudii ama mawaahiiqdii uu la qortay yuhuud iyo mushrikiin iyo dadkii kale. waxaynu arkaynaa markaa usuushii lagu bineeyey dowladda islaamiga ay hadday tahay maka markii la joogay afraadda la dhisayay salaad bay ahayd, hadday ahayd markii madiine la tegay wixii lagu bineeyey salaad bay ahayd. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kale marka la tilmaamayo ummad islaamiya markay dhisanto camalka laga rabaa muxuu yahay.
waynagan le dawladdu muslim ha noqoto dawlad islaamiya ha la dhiso shareecada lagu dhaqmo shareecada lagu dhaqmaya maxaa u horeeya ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay alladina immakannahum aqamu as-salah waxaa lagu bilaabay dawladda haddii laydin makansiiyo alladina immakannahum kuwa ba ilaahay leeyahay marka aanu makansiino dhulka ee iyagu ay xoog bataan ee ay noqdaan dawlad islaamiya oo jirta ay noqdaan bulsho muslim oo jira waxa laga rabaa inay qabto koowaad muxuu yahay aqaamu as-salaah baa ilaahay yiri idan amalka koowaad ee dawlad islaamiya laga rabo inay qabataa isaga laftiisa waxa weeyaan iqaamatu as-salaah salaada in la oogo salaada marka oogisteedu haddaynu nidhi ahdigii makiga ahaa salaad baa la isfarayay qur'aankii makiga ambiyadu ka warramaya iyadoo salaad la farayo ka warramaya nabi maxamed markuu madiina tegay salaad buu ka bilaabay iyo masaajideedii in la hagaajiyo salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dawlad haddii laydin siiyo oo dadka muslimiinta ay dawlad helaan waxa laga rabaa inay dhisaan inay tahay aqaamu as-salaah wasiyadii ugu dambaysay nabi maxamed uu ka tago waxay ahayd as-salaah taasi waxa ay tilmaamaysaa sida dad badan salaadu ugu muuqato inaanay ahayn waxaa laga yaabaa inaynu dadkani ka fakarayaan acmaal siyaasiya loo baahan yahay acmaal iqtisaadiya loo baahan yahay acmaal kana loo baahan waxaba waxa ka horeysa acmaal salaada loo baahan yahay haddaad siyaasi dhabo muslima tahay waa haddaad salaada si fiican dadka u barto وهي صلاة وإيمانك عملها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والليبة العقدية لكن إيمانك وحو حقيقة نغضى بالصلاة ولذلك بين أرككرنا قرآنك أما النصوص قرآنية أما النصوص حديثة ومؤمنك إيا قالك كوكال سواعس الصلاة أما سواحي نأركينا nusuusta qur-aanka oo marka mu'minka dhabtaa laga warramayo qadaayadkiisa salaadna lagu bilaabayo salaadna lagu gabagabaynayo qad aflaha almu'minuun alladina hum fi salaatihim khashi'uun ilaahay wuxuu ku gabagabaynaya walladina hum ala salawaatihim yuxaafiduun mu'minkii dhabtaaha waxa lagu sifeeyey ee acmaashiisa bilow iyo gadaal iyo horaba laga dhigay dhan walba camalkiisa waxa lagu gabagabeeyey waa kuwa salaadooda ku khushuucaya baa lagu tilmaamay ama waa kuwa salaadooda ilaalinaya bale waxaynu tilmaamaynaa dadka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasuulullah afka kaga wada dhawaaqay waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad sida daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayey wixii lagu asteeyey waxay ahayd salaad xumo munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu asteeyey ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ama walaa yaatuuna asalaata ila wahum kusaala fi suurati الtawba aw suurati الnisa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu rabay in mu'minka dhabta ah laga dhex tilmaamo ka munaafaqa ah ee nifaaqa ku sifoobay ee hadalkan uu afka ka leeyahay shahaadii aanu dhab ahayn astaanta rasmiga ee lagu dhajiyey waxay noqotay inay yihiin kuwo salaadooda u kacaya iyagoo kusaala ah iyagoo caajisa iyagoo liita iyagoo aan dan badan ka lahayn taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamayo waxaa lagu kala tilmaamay nawciyada salaada ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leegtahay ama waxa ay tahay sida ogeed